markana aanu usoo laabano martida raadraac iyo stuudiyahayaga. nolosha ka jirta waxaan ku faahfaahinaynaa nolosha ka jirta ama ay haystaan dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Uganda iyo gaar ahaan ardayda wax ku barataa halkaasi caqabadaha ay wajahaan. waxaa ii marti ah oo barnaamijka igala qayb galaya wakiilka midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed Cabduqaadir Cumar Fiid kusoo dhawow barnaamijka raadraac kaga mahadcelinaya nagala soo qayb gasho. marka xiga bal nolosha ka jirta noo faahfaahay dalka Uganda ee ay haystaan Soomaalida halkaasi ku dhaqan. waa tahay su'aalaada mahadsan tahay adii dhamaan bahda howlwadeenada telefishinka qaranka Soomaaliyeed. runtii marka laga hadlayo xaaladda nolosha dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka Uganda waxa weeyaan heerar kala duwan ayay runtii tahay. tusaale ahaan oo kale waxaan la soconaa in wadanka guud ahaan ay ku nool yihiin dad fara badan oo Soomaaliyeed oo siyaabo kala duwan dalka u jooga halkaasi. tusaale ahaan oo kale waxaa jirta dad badan oo qaxootiya oo ku sugan wadanka Uganda gaar ahaan caasimadda Kampala iyo meelo kale oo ay ka mid tahay xerada qaxootiga ee Nakivale oo Kampala in markaas cabaar fog u jirta. marka xaaladda nolosha dadku runtii way kala duwan tahay. ardayda oo kale inta badan waxaa jirta inay wax ka bartaan meelo kala duwan oo gudaha dalka Uganda ah sida gobolada qaar iyo caasimadda Kampala iyo sidoo kale dadka qaxootiga ah oo iyaguna labada dhinacba ku nool. marka nolosha dadka Soomaaliyeed ee halkaas waxaan dhihi karnaa way kala duwan tahay. waxaa jirta inta badan in ay ku nool yihiin nolol caadiya oo la mid ah marka gudaha dalka halkaan oo kale joogno maadaama wadanka Uganda nolosheeda oo kale inta ay tahay mid meel dhex ah oo marka loo eego wadamo badan oo deriska ah oo aan ula jeedo macnaha in aysan nolosheedu ahayn waayahay maxaa lagu qiyaasaa dadka halkaasi ku nool ee Soomaalida ah guud ahaan? waa tahay guud ahaan dadka Soomaalida waxaa lagu qiyaasaa inay tiradoodu gaarayaan ilaa iyo 30,000 ku dhawaad marka la isku daro qaybaha kala duwan. laakiin ardaydoo kale marka loo fiiriyo iyaguna waxaa jirta tiro koob mar ah bilownay ka arday ahaan oo aan runtii rabno inaan ku ogaano guud ahaan ardayda taasoo coronavirus naga soo dhaxgalay. laakiin iyaguna si qiyaas ahaan 5,000 meelahaas way gaarayaan. marka guud ahaan laakiin marka la fiiriyo numberkaas waayo oo la dhihi karo waa number xoogan. waayahay mar haddii aad tahay wakiilkii ardayda ku matalayay qaranka Soomaaliyeed ee halkaasi u joogay bal faahfaahin naga sii ardayda wax ka barata iyo heerarkooda iyo goobaha kala duwan ee ay wax ka bartaan gudaha dalka Uganda markii la eego. waa tahay su'aal sidaa sheegtay weeyaan ardaydu way isku jiraan. waxaa jirta qaybaha kala duwan ee waxbarashada in halkaas ardayda ay ka diyaarinayaan gaar ahaan oo kale waxaa ugu badan ardayda ka sameysa darajada master degree-ga ah. sidoo kale way jiraan bachelor-ka rag ka sameeya iyaguna PhD xitaa waa la helayaa inkastoo laakiin ay aad u yar yihiin iyo dugsiga sare maadaama caruur ama qoysas badan ay halkaasi ku nool yihiin. marka waxbarashadii xitaa hoose dhexe sare oo kale inta way ku jiraan laakiin kuma badna. marka waxay u badan yihiin waa ardayda masterka levelkaas ah. waxayna wax ka bartaan ardayda sida jaamacadaha private iyo public oo jaamacadaha dawladda ay leedahay iyo sidoo kale jaamacadaha caadiga private ah inkastoo aysan ardayda ku badnayn jaamacadaha public ah caqabada ka haysta in ay helaan oo kaleenta. goobahay wax ka bartaan waxa ugu badan caasimadda Kampala. sidoo kale waxaa jirta jaamacado kale iyagana waaweyn oo ku yaala gobolada dalka oo sidoo kale iyaguna ay joogaan ardayda sida Imbali meel la dhahayo ay ku taala jaamacadda Islamic University in Uganda IUIU iyo sidoo kale Imbarara University. marka waxa weeyaan waxay ku badan yihiin ardayda gudaha caasimadda laakiin haddana waxaad moodaa in meel walba jaamacadaha waaweyn ay ku yaalaan oo gobolada dalka markaa tagto inaad haddana la kulmayso arday Soomaaliyeed oo meeshii jooga. marka guud ahaan meel walba waxaan dhihi karnaa jaamacadihii ardaydii way ku jiraan. waxay ku leeyihiin associationno way isku xiran yihiin. waxbarashadooduna waxa weeyaan meel wanaagsan bay u maraysaa. waayahay
cabdifataax marka loo eego waxbarashada waxaa jira arday ayagu waalidiintoodii ay garab taagan yihiin iyo kuwo ka faa'iidaysanaya manxooyin maxay la ekaan karaan dadka hadda ardayda ah Uganda wax ka barta ee fursadda u helay manxooyin dowladeed inay wax ku bartaan ama kaga faa'iidaystaan waxbarashadooda aad iyo aad waa su'aal muhiim ah horta waxaa aad u yar ardayda halkaas scholarship-yada ama sida bilaashka waxbarashada ku hela boqolkiiba numberka ugu badan waxaa weeyaan arday waalidkood iyagu ay taakuleeyaan iyo kuwo kaloo laga yaabo inay gudaha dalka ku shaqaysteen iyaga iska bixiyaanoo waxbarashadii halkaas marka guud ahaan ardaydu waxay u badan yihiin kuwa faamilkoodii ama waxbarashadii iyaga iska bixinaya fursadahaas kaleenta way jiraan oo waxbarashada freega laakiin ardayda hesho waxay u badan yihiin kuwa dugsiga sare ku dhameeya wadankaas oo kale tusaale ahaan waxaa jirta hadda arday Soomaaliyeed oo dugsiyada sare halkan kaga baxay oo halka u tagay inay darajada koowaad ee waxbarashada ka bilaabaan laakiin sameeyay hal sano dugsigii sare halkaas intay ku dareen oo kale halka ay ka dhameeyeen marka ardaygaas oo kale wuxuu haystaa fursado ah in uu heli karo haddii markaas sanadkaas u dambeeyay uu level sare waxbarashadii halkaas uu ku dhameeyo wuxuu fursado u helayaa inuu helo waxbarasho oo bachelor ah oo free ah oo laga yaabo hay'adaha qaar oo kale wadankaasi ku sugan inay siiyaan ama siyaabo kale uu helo laakiin numberka dowladda Uganda ee scholarships-ka ah ee ardayda internationalka oo kaleenta inay Soomaalida helaan aad bay numberkaasi u yartahay waayahay markii waxbarasho la sheego waxaa jira maraaxilo kala duwan oo ardaydu ay wajahaan maxaa nooga sheegi kartaa caqabadaha soo wajaha ardayda dalka Uganda wax ka barta ee aad diiwaan geliseen su'aal caqabadaha waxay isugu jiraan mid xagga nolosha ah iyo mid xagga waxbarashada haddii aan ku hormara midda waxbarashada kaleenta waxaa jirta ardada markii halkan ay ka tagaan ardayda oo halkaasi ay tagaan in systemka xoogaa waxbarashada dalkanaga iyo kii wadanka Uganda inaysan iswaafaqsanayn oo markaasi ardaygu wuxuu marayaa marka process ah in waxbarashadiisii haddii shahaado dugsi sare uu haysto bachelor bilaabayo ama haddii baajkii uu haysto in shahaadooyinkiisa guud ahaan lagu dabaqo midda wadanka Uganda uu markaasi meel UNEB lahayo uu marayo markaas systemkii grade-ka wixii la guurinayo marka ardayda mararka qaar oo kaleento meeshaas waxay kala kulmaan caqabado ah in mararka qaar wixii ilaan sanadkii ardayga markuu xagga tago waxaa laga yaabaa fursad badan inuusan haysan sababtoo ah deadline-ka waqtiga jaamacaddu inteegyada ay sameynayaan aad bay u yar tahay marka tusaale ahaan waxaa ula jeedaa mar hadduu semesterka bilowdo jaamacadda admissionadeedii way xirmayaan marka ardayga wuxuu sugayaa jaamacadaha qaar hal sano kuwa kalentana ugu yaraan 6 bilood hal semester oo kale marka caqabada dhinacaas oo kale way jiraan caqabada xagga jaamacadaha publiga ah ee dowladdu maamusho oo kaleenta ay dowladdu leedahay in ay helaan ardaydu way ku yar tahay sababtoo ah inta badan horta priority waxay siiyaan ardayda gudaha wadanka Uganda iyo sidoo kaleenta East African Community oo Soomaaliya aysan ku jirin marka waxay noqonaysaa percentage aad u yar in jaamacaddii loo fiiriyo ardayda internationalka ahayd oo laga yaabo marka number kooban in ay jaamacadda helaan jaamacadda hadda Makerere oo kale ugu horeyso oo jaamacadda koowaad ee wadanka Uganda ah sidoo kalena Afrika saddexaad afraad soo galayso ardayda Soomaaliyeed inta badan way codsadaan haddana number fiican ma helaan marka waxa caqabadaha iyaduna ka mid tahay jaamacadaha kale dowladdu markaasi ay maamusho sidoo kaleenta xagga marka loo fiiriyo waxbarashada lacagaha oo kaleenta tusaale ahaan way kala duwan tahay ardayda internationalka lacagta ay bixinayaan semesterkii ama sanadkii iyo ardayda kaleenta marka waxaa jirta in ardayda mararka qaar ay sameeyaan oo kale inay qaataan qaxootiga inay iska diiwaangeliyaan oo kaarkii qaxootiga ay qaataan taasoo u saamaxaysa marka in uu bixiyo qiimaha ardayga Ugandeska uu wax ku baranayo maadaama East African Community Soomaaliya ay ka maqan tahay marka dhinaca taas oo kale intana xagga caqabadaha kale oo waxbarashada ardayda way kala kulmaan dhinaca noloshana waxaan la soconnaa in Uganda marka loo fiiriyo Africa inay ka mid tahay wadamada inta badan xagga gaadiidka oo kale transportationka loo isticmaalo mootadan labada lug leh oo moota Ficonta ah oo xagga looga yaqaan boda marka inta badan waxa weeyaan ardadu caqabado waxay kala kulmaan inay shilal la kulmaan oo kaleenta waxaa jirtay marar badan oo arday sidaas oo kaleenta dhibaato nooga gaartay marka
laakiin saas ay tahay haddana ardadu garab istaaga isku muujiyaan markuu arday wax naga gaaro kaleento in isbitaalkii ku cidloonin oo mar walba lala jiifto aad baa laisku walaashadaa marka dhinacaas oo kaleentana xoogaa caqabadii xagga nolosha ah ay ka mid tahay waana wax guud oo dadkii ka siman yahay haddii aad tihiin aad guddoomiyihii waxaad tahay ama wakiilkii midowda ardayda soomaaliyeed maxaad ka caawisaan marka caqabadahaasi ardaydu ay wax ku bartaan dalka Uganda ee ku dhaqan ama wax ka bartaan ardayda horta inta badan way isku xiran yihiin weliba siyaabo kala duwan heerar kala duwan isugu xiran yihiin aad iyo aad haddii ay noqoto inay u midaysan yihiin xag deegaanadii ay ka yimaadeen ah iyo si guud intuba marka haddii caqabadahaas oo kaleenta ardayda aad isaga caawiyaan haddii tusaale ahaan ardaygii oo kaleenta xagga waxbarashadii oo kaleenta ay caqabado kaga yimaadaan oo kale in ardaygii la caawiyo sidoo kaleenta ardayga haddii dhibaato ku timaado kale sidoo kale waa la caawiyaa waxaa kaloo jirta jaamacadda caqabado mararka qaar ardaydu ay kala kulmaan tusaale ahaan oo kale in qalinjibintii oo kale lagu adkeeyo ama problemyo dhinaca jaamacadda oo kale markaasi ay la kulmaan markaasoo kaleentana associationada halkaasi ka jira ee ardayda ayaa farageliya oo jaamacaddii la xiriira xitaa haddii ay noqoto markaas inaan safaaradda u baahno oo kaleenta waxa weeyaan waan gaarsiinaa si ardaygaas dib u dhac ama uusan ugu imaaninoo sidaasaa marka u wajahnaa inta badan waa laisku xiran yaho waxa weeyaan wixii caqabado ah xalkeeda waa la wada galaa waayahay marka laga reebo safaaradda iyo qeyladhaanta inaad markaa gadaalo gaarsiisaan jaaliyada soomaaliyeed dad soomaaliyeed oo ama ganacsataa oo iskaashi la leedihiin ma jiraan oo idinkaga warqaba xaaladda iyo nolosha aad wax ku baranaysaan aad iyo aad jaaliyado kale way jiraan weliba jaaliyada dhowraa jira sidaan aan hubo marka jaaliyadahoo kaleenta ardadu way isku xiran yihiin sababtoo ah inkastoo horta Uganda aysan ka jirin jaaliyad guud oo hal ah oo midaysan oo Soomaali ah haddana sidaas ay tahay jaaliyadaha iyo ardayda waa la iska warqabaa wixii caqabado ah oo kaleento inta badan haddii ay noqoto tusaale ahaan hadda xaaladda corona oo kale marka lagu jiray waxaa jirta waqtiyo bandow ah oo kadib la socon karin sidoo kaleento mararka qaar in waqtigii sharciga ahayn qofka haddii uu socdo kale la kulmi karo dhibaata oo ah in tuuga iyo ay soo haleelaan oo kale marka inta badan jaaliyadda ayaa aad iskula shaqaynaynay oo guddi gaara u xil saarto ardaydu ay qayb ka yihiin markii arday meel lagu xiro ama in jaaliyaddii ay furdaamiso ardayga la soo deeyo marka jaaliyadaha sidoo kale ardaydu way ku xiran yihiin oo dhinacaas caqabadaha wixii iyaga ugu baahanana xalkoodu waxa weeyaan waa dad isku xiran waayahay maxaa fursadaha oo ay ardaydu halkaasi ay ku haystaan oo ay ama ka faa'iidaysan karayaan oo dadaalkooda ay ku heli karayaan oo ay dalalka kaleeto ay nolosha kula haystaan meesha ay la qaybsadaan oo noo sheegi kartaa aad iyo aad sugaal fursadaha xagga tusaale ahaan oo kaleenta noloshoo kale marka loo fiiriyo waa waxa weeyaan Uganda wadan lagu noolaan karo oo aan ula jeedo qofka haddii noloshiisa oo kaleenta in si dhexana u noolaan karo si hoosena u noolaan karo maadaama waxbarasho meeshii loo tagay xagga waxbarashadana waxaa jirta in Uganda oo kale hadda ay tahay wadanka ugu horeeya ee Afrika ee luqadda Ingiriiska dadka ku hadla ah iyadana waa fursad kale oo ardaygii maadaama hadda luqadda Ingiriiska ay tahay wax international adduunka dhan lagu wada xiriirinayo in ay kaga faa'iideystaan inta badan in luqadii ardayga markuu Uganda ka yimaado uu luqadii aad u garanaya taasoo markaasi saamaxaysa in Africa number 1 ay ka tahay Uganda xagga luqadda Ingiriiska wadamada Afrika kaga hadla sababtoo ah arday kala duwan ayaa la dhaxgalayaa fursadahay ka mid tahay ardaydaas kala duwan waxa weeyaan iskaashi ardaygii marka waxa weeyaan wuxuu soo laabanayaa asigoo dhisan xagga luqadda ah oo fursadihii ka mid ah iyo sidoo kale isdhexgalka iyo bulshada iyo abaabulkeeda iyo wada noolaanshaha dad kale iyo marka fursadaha dhinacaas oo kaleenta ah ardaydu way helaan badankood sidoo kaleentana xagga dadaalka ardada ee dhexgalka ardayda kale ajaanibta ah iyaguna sidoo kale waynu sameynaa oo waxaa jirta associationada wadamada diriska ah ee inta badan wax iyagana waxbarashada u soo aaday sidoo kale annaga oo kale wadanka Uganda in iskaashi aan la sameyno mararka qaar sidoo kale waxaa jirta inaan isku xirannahay ardada qaranka ee wadanka Uganda oo iyagana
in muddo ah dhisnaayo markaasi dhigeenna ah oo waxyaabo badan xagga caqabadaha oo kaleento iyagana iska caawino isdhexgalka noocaas oo kale waa sameynaa iyo kulamo gaara. waxaa kaloo jirtay in sidoo kaleento booqashada ardayda in layska warhayo oo kaleento aan sameynay. tusaale ahaan oo kale ardayda gobollada naga jiro kale inaan mararka qaar aan aadno meesha ku baaqano waxbarashadoodii iyo noloshoodii waxaasoo kale aan soo fiirino waxaa weeyaan is xasuusino inaan meesha dan waxbarasho u nimaanay. waxaasoo dhan waxaa weeyaan isku xirka guud ayaa noo saamaxayo in ardayda sidaas isaga warhayaan. waayahay ajta marka dalka haatan wuxuu galayaa xaalad doorashooyin ah. maxay yihiin waxyaabaha la filan karayo oo dalkaasi aad isleedihiin waxbarashadiin ardayda Soomaaliyeed ama nolosha guud ee Soomaalidu ay ku haysato halkaas way ka filan karayaan haddii ama isbedel dhaco ama doorashadu ay sidii hadda la filayo ay u hirgasho? aad iyo aad runtii horta xilliga doorashada lagu jiraa Uganda. waxa weeyaan doorashada xaggana iyo systemka halkan isma laha, sababtoo ah xagga doorashada hal mar ayaa waxaa lasoo dooranayaa dhammaan maamulka oo dhan, baarlamaankii, guddoomiyihii degmada, madaxweynihii, wixii dhan baa hal mar la doortaa. marka inta badan Soomaalida natiijada ka imaanaysa doorashadaas oo kale waxay ka muujiyaan walwal ama cabsi badan oo ah haddii madaxweynaha hadda talada hayo kale oo Soomaalida inta badan jecel oo soo dhaweeya Yoweri Museveni, haddii qadka uu ka baxo kale in Soomaalida ay wajahi karaan wax aanan la garanaynin oo kale. marka aad waxay markaasi natiijada ka soo baxayso kaleento hadal haynteedo kale way jirtaa. sidoo kale waxbarashada way saameynaysaa doorashadii, waxay saameynaysaa nolosha dadka caadiga ah, sida doorashooyinkii horeba aan ka warhelnay in mararka qaar oo kale lala kulmaya boob iyo Soomaalidii oo kaleenta xafadahoodii iyo dhac oo kale in loo geysanayo baa imaanaysa. waxbarashada waxaa laga yaabaa in gaab asagana ay ku timaado, siba jaamacadaha dowladda markaasi ay leeyihiin oo ardaydu dib u dhacaas inta badan xilliyadaas iyagana ka muujiya. marka natiijada unbay inta badan Soomaali ahaan anagu ka walwalnaayo, waxaan aad u jecel yihiin markaasi in madaxweynaha hadda ay la qabsadeen oo nolosha caadiga ah, sababtoo ah hadda qofka Soomaaliga ah ee halkaasi jooga wax problem ah kuma qabo in xilliguu doono uu socdo. sidoo kaleenta ma jirto xitaa cid ku dhaysantay u socotaa yaa tahay, xitaa lisma weydiiyo aqoonsi. sababta qofka fiisaha ama dalku joogga xitaa ardada mararka qaar waxaa jirta in u saamixi weyso kaleento ama marka problemka laba kulmaan oo qofka xilliguu rabo ayuu deganaashihii soo saaranaya asigoo ganaax yar bixinaya. marka dhegdheg badan ma jiro. fursad u gaar marka Soomaalida miyaanayso waa mid ay wada qabaan. guud ahaan wadanka ajaanibta dhan waa laga siman yahay. ajaanibta dhanaa ka siman. marka xaaladda wadanka amnigiisa keenaya marka oo aad u wanaagsan. waayahay ajta waxaa jiray sanadii hore dabayaaqadeeda maraaxil dunida oo dhan wada saameysay oo la dhihi jiray COVID-19, inkastoo ilaa haatan uu taagan yahay. ardayda iyo nolosha halkaasi Soomaalida ay ku haysato seebuu u saameeyey? sugaal saameynta waxa weeyaan waa guud ahaan dadka halkaas ku sugan way gaartay. ilaa iyo haddana saameynteeda wadanka weli way ka jirtaa oo aad iyo aad. laakiin inta badan awaamirtii wasaaradda caafimaadka iyo dowladda soo saartay way shaqeeyaan. saameynta waxa weeyaan tan iyo March in waxbarashadii aysan jirin oo waxa weeyaan laba semester halka ardada qaar oo kale xilligan u dhamaan laheeday in gaabkaas oo kale u yimid. waana dareemi kartaa qofku markuu arday yahay oo ka yimid dal aanan dalkiisa ahayn si uu wax ugu barto, in markaasi waxyaabo badan qorsho kale laga yaabo ardaydeena inay ku tagaan muddo kooban inay meeshii joogaan xilliga waxbarashada. marka xagga gaabka waxbarashadaas oo kaleento waxa weeyaan waa laga wada siman yahay, waxaana keenaysa in waxbarashadii wadanka maadaama Uganda dadka nolosha ay ku nool yihiin mid sare iyo mid hoose ay tahay, in ardaydii guud ahaan wadanka u dhalatay oo meelo fogfog ka yimid oo kale inaysan access u helaynin internetkii in ay helaan. marka taas ay gaabka zaa'idka keentay. laakiin hadda dowladda iyo jaamacadihii waxaa laisla fahmay in la bilaabo process online ah oo ardayda daraasadihii wixii ay ku qaadanayaan
taasoo hadda bilaabanaysa. waayahay cabdifataax waxaa tahay wakiilka ardayda soomaaliyeed ee qaranka Uganda. adigoo fursadan caawa telefishinka qaranka uu ku siiyey ka faa'iidaysanaya muxuu yahay message-ka aad u dirayso ardayda aad ama ka wakiilka tahay ama wax kula barta dalka Uganda? aad iyo aad waad mahadsantihiin. waxaan dhihi lahaa ardayda Soomaaliyeed meel walba oo dunida ay ka joogaan in waxa weeyaan waqtiga ay ka faa'iidaystaan. meel kastoo ay joogaanna dan waxbarasho ayay u tageen, marka in waxbarashadii waqtigeedii ay ka faa'iidaystaan, ku dadaalaan, waxyaabo kale aanan lagu mashquulin. si gaara ardayda Uganda iyaguna waxaan dhihi lahaa in dadaalka halkii laga sii wado, isku xirnaantii, midnimadii, Soomaalinimadii in la muujiyo, la iskaashado mar walba, waxbarashaduna lagu dadaalo, iyo sidoo kale wax akhriska oo runtii aan dhihi karo ardaydeena Soomaaliyeed way u baahan yihiin in badan in lagu wacyigeliyo in ay wax akhriyaan. marka guud ahaan ardayda Soomaaliyeed taasaan kula dardaarmi lahaa in waxbarashadooda ay xoogga saaraan. cabdifataax cumar fiid, wakiilka midowga ardayda Soomaaliyeed ee qaranka ee dalka Uganda oo caawa barnaamijka igu marti ahaa ayuu ahaa. daawadayaal isaga ayaan ugu dambeeyey guud ahaan barnaamijkii raadraac oo caawa aan halkan idinkala socodsiinaya anigoo Sugaal Macalin Maxamuud. waxaan u mahadcelinayaa saaxiibadii farsamada ee iga caawinayay barnaamijka taawada uu ku jiray. guud ahaan tan iyo intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doono saaxiibayaal dhammaanteen oo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.